mobilkaaga marka aad isticmaal laga qaato ama laga dafo waxaad halis ugu jirtaa marka in privacy-gaaga halis uu galo oo marka xog badan oo muhiim ku ah oo adiga secret ku ah oo sensitive ah in marka sida qofka gacantiisa u gasho oo wuxuu doono ka sameeyo waxa dhici karta in telefoonkaaga sawirada kugu jira qofka uu arki karayo qof kale marka uu dirsan karayo ama uu kala bixi karayo maybe waxa laga sawiro marka aad iyo aad sensitive u ah oo marka aanan wanaagsaneyn qof kale inuu arkin kugu jiraan sidoo kale mobilkaaga waxa kugu jiri karaya akoon social media laga yaabo qofka intuu akoonkii kala hadhow inuu soo geliyo dad la hadlo marka asxaabtaada fariimo u diro marka mobilkaaga markastuu log uusan ku jirin halista marka waxyaabaha laga sameyn karo qofka hadduu gacanta u galo aad bay u badan tahay xitaa waxaa laga yaabaa haddii akoon ay kugu xiran bangi marka in qofka lacag u kala bixi karayo hadda muuqaalka waxaan doonaynaa idin la wadaago 4 shay oo muhiim ah oo la doonayo qofka inuu sameeyo taasoo kor u qaadaysa telefoonkiisa marka haddii qofka gacanta u galo in sida ugu dhaqsaha badan uu uga hortagi karo qofka in mobilkiisa uu access gareeyo marka soo dhawaada waxaan doonaa muuqaalka intaan u guda galin inaan ka codsado muuqaalka marka hore noo soo share gareystaan sida badan uga faa'iidaystaan sidoo kale haddii aad ku cusubta platformskeena ku soo bir waxyaabo badan waxaan ka hadalnaa teknolojiyadda ganacsiga iyo self development ku saabsan soo dhawaada markaan isla eegno muuqaalka marka hore waxaan doonayaa inaan idiin sheego horta maanta waxaan xoogga saarnaa androidka marka dadka iphone-ka isticmaala waxaan isku dayi doonaa muuqaalka inaan kasoo sameeyo comment inoogu soo qorada u baahan tihiin laakiin maanta waxaan xoogga saarnaa androidka sababta muuqaalka aad u dheeraana haddii labada xabaan isku darno qodobka koowaad ee muhiimka waxaa weeyaan ka hadlayno in aad iska xidho waxa loo yaqaano haddii mobilkaaga qof uu haysto oo log uu ku jiro telefoonkaaga in qofkaas aad ka ilaaliso inuu telefoonkaaga damiyo sidoo kalena markaa inuu internetka ka xidho soo markasta mobilkaaga internetka uu furan yahay waa markastoo aad heli karta ama kuu fudaa karta inaad heshid haddii mobilkaaga internetka ku xiran yahay oo find my kugu xiran tahay waxaa u leedahay mobilkaaga inaad tracking ku sameyso qofka meesha jooga markaa ogaan karta xitaa sidoo kalena xataa remote wipe ku sameyn kartaa ka masixi karta data ku jirto haddii xog sensitive ay kugu jirto markaas waxaa muhiim tahay in datada telefoonkaaga uu furan yahay haddii datada laga xiro markaa way adkaanaysaa inaad gaadho soo marka koowaad waxaa u baahan tahay in aad mobilkaaga datadiisa aad ka ilaaliso qofka inuu disable gareeyo isagoo log ku jira soo imika waxaan assume gareynaynaa mobilkaaga inuu log ku jiro log asagoo ku jira waxaan diidaynaa marka qofka inuu datada ka xidho so sidaa u sameyso waxaad tegi doontaa marka hore soo qaad mobilkaaga kadib settingska waxaad tagtaa androidka markaad timaado settingska waxaad kasii tegi doontaa halkay ku qoran tahay lock screen and AOD kadib waxaad sii dooran doontaa secure lock setting halkan wuxuu kuu diin doonaa markaa inaad geliso numberkaaga sirta ah pinlogaaga kadib pinlogga markaad geliso xaggan baa imaan doontaa waxay u baahan tahay meesha ku qoran tahay lock network and security inay enable ku tahay imikaana way ii furan tahay xaggaa markay enable ku tahay hadduu qofku isku dayo inuu datada ka xiro ama flight uu saaro markasta waxaa qasaba in uu passwordkiisa geliyo marka qofkii passwordkaaga haya unbaa u yeelan doona in mobilkaaga markaa datadiisa uu xiro so qodobka koowaad waa kaa muhiim wey mobilkaaga in aad qofka ka ilaaliso inuu intaa internetka una ka xirin markasta markaa ma dami kara xitaa oo androidka wuxuu ku fiican yahay marka fashioniis dambe qofka xitaa mobilka ma baqtiin karayo datada ma ka xiri karayo haddii mobilka qofka as long as uu haysto markasta mobilkaaga haddii datadiisa ay furan tahay waxaa uu leeyahay qofka in aad tracking ku sameyn karto meeshuu joogaa tegi kartid sidoo kale xitaa marka haddii mobilkaaga xitaa datada lacagayna kugu jirin lacag intaa ku shubto aad u furi karto si automatic ah so taas waa qodobka koowaad ee muhiimka ah qodobka labaad isagana waxaa weeye wax la yiraahdo waxaan u furi doonaa mobilkeena anti theft settings oo anti theft settings ka android inta badan ku jira mobilada badankood isagana ku dhex jiraan doonaya markaan isla eegno so kaasa u tagto waxaad tegi doontaa dib baa u noqonayna imika inagoo settingskeena ku jirna waxaan tegi doonaa halkay ku qoran tahay security and privacy xaggaa markaa soo gashay kadib waxaad sii tegi doontaa more security setting baa furaysaa kadib waxaad sii dooran doontaa halkay ku qoran tahay theft protection so theft protection kan waa menu gaar ah oo dhowr option oo muhiim baa ku jira optionka koowaad ee muhiimka waxaa weeye theft detection lock so theft detection lock waxaa la yidhahdaa haddii mobilkaaga uu ku yimaado isbedel degdega for example adigoo fadhiya haddii mobilkaaga hal mar inta la dafo lala cararo kale so mobilkaaga waxaa ku jira sensors markaa awood u leh inay dareemaan isbedelka degdega ah mobilkaaga inuu automatic markaa islo gareeyo so imika haddii aan click siin wuu noo sharxi doonaa lock your device wuxuu isticmaalayaa devicekan motion sensorska iyo wifi-gaaga iyo bluetooth-kaaga si markaa uu u dareemo in mobilkaaga qof uu qaatay ama uu la cararay so kan 100% ma aha ma isku halayn karayo laakiin wuxuu asaga u dhow yahay in uu loo gareeyo mobilka haddii isbedelka degdega uu ku dhaco isagoo isticmaalaya markaa motion detectorska ku xiran telefoonkaaga so tan saa u furto turn on baan dhahaynaa so kan hadduu noo furan yahay so kan waa qodobka labaad laba qodob baa inoo hadha markaa qodobka saddexaad waxaa weeye offline device lock so offline device lock aan asaga wax kala maan waxaa weeye haddii mobilkaaga asagoo furan
qofkii for example mobilkii baa laga qaato waa lala cararay mobilkaaga qofka hadduu isku dayo isagoo furan inuu internetka ka xidho oo connectionka oo dhan uu markaa ka disable gareeyo mobilkaaga wuxuu si automatic u dareemi doonaa in mobilka networkiisa offline laga dhigay kadibna uu sixiri doonaa so tan waxay u wanaagsan tahay qofka in mobilkiisa aanan dheetada laga xirin sababta haddii dheetada laga xiro remote logana u socono hadhow ma shaqeyn doono so remote log isaga wax kale maahan waxaa mobilkaaga haddii qof uu qaato waxaan u baahanaa mobilkeena inuu isticmaalo qofkaas baan u diidaynaa si remote log baan uga xidhinaa so remote log wuxuu u baahan yahay inuu qofka marka dheetada u furan tahay laakiin qofka hadduu mobilka kaa qaato dheetada uu ka xiro so remote log waxba inuu tiri doono taasna waxaa uga horteegi doonaa qofka hadduu mobilka kaa qaato uu is yiraahdo log garey automatically optionkan offline device logga markaa shaqeyn doono oo mobilka waa laga log garanaya marka waxaan u baahannahay in aan haysano marka backup plan so backup plan buu noo noqonayaa kan so kan waxaa u baahan tahay marka inay enable gareyso isaga marka wuu ku sheegi doonaa wuu ku sharxi doonaa qaabka uu shaqeynaa inta imika idin sheegayso tan un baan dhahayaa marka hadda labadaas baa noo furan kan ugu dambeeya ugu muhiimsan aan rabaa inaan idin la wadaago waa kan isagana waxaa la dhahaa remote log so remote log wuxuu ku fiican yahay haddii mobilkaaga qof uu kaa dafo uu la cararo waxaa awood u leedahay in within a minute aad device-ka marka aad log gareyso ma u baahnid username iyo password waxa inaad geliso kaliya waxaa u baahanta telephone numberkaaga inaad xusuusato sidoo kalena marka optionka uu ku furan yahay so optionka remote log waa in enable ka dhigataa haddii imika kaliya aan siin hagan baan kusii arki doonaa hadda wuu furan yahay automatically wuxuu ku sheegi doonaa marka phone number halkan phone numberka imika check number buu ku dhahayaa waa in marka xagga numberkaaga uu kasoo baxaa haddii numberka xagga uu kasoo bixin that means kan ma kuu furna so imika xaggan buu kugu sheegi doonaa in telephone numberkayga uu igu xiran yahay remote logana markaa igu furan yahay like for example mobilka haddii laga dafo imika qof uu qaato kaliya waxaan u baahanaa inaan furo linkiga android.com/log so linkigaagan buu igu furan yahay computerkan kaga jira waa kana so linkigan haddii mobilkayga qof uu la cararo waxaan u baahanaa kaliya qofka ila joogay saaxiibka ila fadhiya ama qof inaan mobilka ka qaato oo markaa linkiga aan furo so linkiga markaan furo xaggan hadda tusaalaha computerkan doonaya inaan ka tuso waxaa ii soo bixi doona xaggan so xaggan waxaa lagu weydiin doonaa inaad telephone numberkaaga u geliso telephone numberka xagga gelinaysaa kadib waxaa dhihi doontaa log device waxaa u baahan tahay laakiin mobilkaaga markaa inuu dheetadiisa u furan tahay sidoo kale remote logana markaa aad enable kasii dhigata marka hore so hadda tusaale yar baan tusanaa haddii anoo mobilkayga haya gacanta ku haya iminka screen recording baan ku sameynayaa computerkan kasoo dirayaa remote logga kadibna automatically within a minute mobilkayga uu isla gareynaya taasoo markaa ka ilaalin doonta mobilkaaga hadduu gacan qaldan galo in markaa xogta kugu jirta private-ka ah markaa qofka access uu helo laakiin marka adoo meel magaalo iska joogday mobilka laga dafo lagala cararo oo unlock uu ku yahay qofkaas awood wuxuu leeyahay wuxuu rabo inuu mobilka ka sameyn karayo marka hadda numberkayga xaga gelinaya remote log baan usoo dirayaa kadib markaa idinkoo arkaya uu isla gareyn doonaa mobilkayga wuxuuna ii sheegi doonaa markaa in si remote ah loo log gareeyay markaa dirtaan saa ujeedaan imika wuu isla gareeyay telefoonkayga automatically wuxuuna ii sheegayaa markaa haddeertaan screen record xataa wuu joojiyey in theft protection loo log gareeyay xaggan hoose kusoo qoraya haddii uu isla gareeyay sidoo kale hadda halkan haddaa eegtan wuxuu ku dhahay log request is send so tan oo kale waxay aada ugu wanaagsan tahay qofka haddii ay ku dhacday xaaladaas oo kale in mobilkiisa markaa uu si degdeg u log gareysto kaliya waxaa u baahanta inaad gasho android.com/theft marka qof kasta mobilkiisa waa ka furi kartaa haddii uu kuu furan yahay markaa optionka kaliya waxaa u baahan tahay telephone numberkaaga in halkaa geliso kadib log markaa u dirto sida hadda halkan ka arkayso oo kale wuxuu ku sheegaa markaa log is sent markaa waxay ku qaadan kartaa ilaa 1 daqiiqo wax ka yar in qofka telefoonka haya laga xidho marka tan waxay ka caawin kartaa in xog badan oo sensitive ah kugu jirto mobilkaaga ku badbaado I hope muuqaalka wax badan ay ka faa'iideysatay muuqaalka noo soo share gareey wixii su'aalaha qabta oo kale comment inoogu soo qora si aan kaga jawaabno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh